qabataan naf iyo maalba si aan ugu gurman lahayn kunka shilin raashinka xasiiga gogosha waxa weeye raashinka dhammaan timirta saliida waxaan rabaa inaan ka hadlo horta laba qodobka ugu horeeya waxa weeye inaan qayladaan u sameeyo dadka reer Gaardaafu maanta dhaweed roobabku mihigaanka halkaas ay ka da'een wadooyinkii isku socodka arrimaha bulshadana ee go'een runaantii dawladuna ama madaxweyne ku-xigeenkuna uu baaq qayladaan u soo jeediyay samafalyaal badan ay halka ku sugan yihiin marka maadaama aniguna arrimaha samafalka aan magaranaysaa ka qayb qaato inaan bulshada ku dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo walaalaha reer Gaardaafu waa tahay kaamil waxaad ka mid ahayd guddigii gobolka Sool tabarucaadkii beledweyne hadda kaalin intee la eg baad rabtaa inaad gobolka Gaardaafu ka qaadato runaantii walaal waa saa sheegtay weeye waxaan ka mid ahaa guddigii dhawaan tagay beledweyne ee ka socday gobolka Sool degmada Laascaanood halkaasna waxaan geynay agab sida bustayaashii gogoshii dharkii iyo waxaan geynay lacag dhan 30,000 hadeerna waxaan doonaynaa hadduu allaydno inaan ka qayb qaadano Gaardaafu arinta ku timid oo waajib bay nagu tahay inaan ka qayb qaadano waadada walaalahan nahay isir ah tii sidaan uga kaambeyn gareynay Laascaanood arintii beledweyne baan jecelnahay hadduu allaydno inaan Gaardaafuna uga kaambeyn gareyno hadduu allaydno waa tahay kaamil waxaa tahay shakhsi markii laga reebo inaad reer Sool tahay waxaa tahay shakhsi reer Bariya gobolka Gaardaafu waa gobol facweyn taariikhda ugu ballaaran ee Puntland isaga bay ka soo asaasantay sidee baad u aragtaa maantay dhibaatada ugu weyn inay tahay oo haysataa wada la'aan horta waa runta anigu waa sax haddaan Laascaanood tagayo dhowrkii sano u dambeeyay aan Laascaanood deganahay gobolka Bari baan ka mid ahaa gaar ahaan degmada Boosaaso waliba waxaan ahaa ciyaartooyda gobolka xulka gobolka Bari baan ka mid ahaa waan aqaanaa Bari niyow Bari waxaa keenaya dhibaatada ugu weyn waa wada la'aanta way dhibaatada ugu weyn waa wada la'aanta marka intaas oo sano hadda maamulka Puntland oo dhowr iyo 20 jirsaday in gobolkii ugu qadiimisanaa Puntland hadda laga cabanayo wada la'aan maxaa sababay bay kula too heerkan soo istaajiyeen wallahi horta marka hore wada way jirtay oo waxa isku xiriyay Boosaaso iyo baargaal iyo isku shuban iyo wadooyin way jireen laakiin hadeer waxa weeye wadada way gooday roobabkii ka daay halkaas gooyay qayladana ka hor ma jirin laakiin hadda waxaan isleeyahay hadduu alla maadaama loo soo jeestay halkaasna samafalyaal badan iyo guddi badan ay ku sugan yihiin waxaan jeclaan lahayn wadadaas in la dhameystiro sida codsadeen shacabka ka soo jeeda gobolka Gaardaafu waa tahay gobolka Soolaad hadda degan tahay maxaad baaq ah u diraysaa maadaama aad awalba ka mid ahayd dadkii kaalinta weyn ka qaatay in beledweyne loo gurmado hadda maxaad reer Sool oranaysaa insha Allah taala horta anigu hadda Boosaasan ku sugnahay oo maalmood baan xamar ka yimid hawshii markaan soo dhameynay aan soo qaybinay gurmadkan beledweyne wadnay Boosaasana hooyaday baa degan aan soo salaamayay hadeerna insha Allah taala waxaan rabaa markaan Laascaanood tago inaan u kaambeyn gareeyo sidii looga qayb qaadan lahaa dhibaatada ku habsatay gobolka Gaardaafu shacabka gobolka Soolna waa shacab aad iyo aad u qiimo badan waa shacab jecel walaalahooda inay wax la qaybsadaan haddaan hadeer waxa weeye hawsha Gaardaafu bilownana waxaan rajeynayaa ama jeclahay insha Allah taala inay si mugle uga qayb qaataan waa tahay ugu dambeyntii Soomaalidu waa dad isku wada duuban meel walba ay joogaan guud ahaan Soomaali weyn maxaa baaq ah oo aad u diraysaa in ay kaga qayb qaataan wadadaasi dhisitaankeeda maadaama hawsha taagni ay ka weyn tahay agab gargaar oo meesha ay wada dayacan tahay horta waxaan ugu baaqayaa Soomaalidu inay isku tashato ay isku gurmato hadeer beledweyne wax badan baan ka soo barannay hay'ado badan baa loo qaylin jiray
laakiin haddeer taas meeshu way ka baxday Soomaalida waa isku gurmanaysa Soomaalida wax wada qabsanaysa wali waxaan jeclaan lahaa haddeer waxa wadadaas la fagoray in ma garanaysaa hore loogu sii socdo oo dhismaheeda iyo aan sii galno oo dimeesha wadan nadiif oo wanaagsan ay ka soo baxdo Soomaalida waxaan leeyahay ka qayb qaata sida beledweyne iyo uga qayb qaateen gobolada kale Soomaaliya shacabka Puntland waxaan u sheegayaa inay u soo jeestaan inay ka qayb qaataan